ciidamada ammaanka maamulka galmudug ayaa xalay waxay baaritaano xoog leh ka sameeyeen guud ahaan xaafadaha dhaca koonfurta magaalada gaalkacyo. ciidamada ayaa la sheegay inay guri xalay u galayeen xaafadaha koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug. sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamadu ay dadka qaar weydiinayeen aqoonsiyo iyo sidoo kale cidda taqaana, waxaana weli la soo wareyn cidda sida rasmiga loogu soo qabtay howlgalkaasi. saraakiisha ammaanka gobolka mudug ee galmudug oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan howlgal weyn oo ay ku baacsanayaan koox hubaysan oo habeen hore duleedka gaalkacyo isku meel ku dishay ilaa 10 ruux oo rayid ah, waxaana la sheegay in dadkaas la dilay ay dhammaantood ka soo jeedeen gobolada koonfureed. dableyda geysatay xasuuqan ayaa la sheegay inay ka careysnaayeen dil habeenkaas koonfur gaalkacyo loogu geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda galmudug, iyagoo dadkaas ay dilka u geysteen ay ka dhex aruuriyeen gudaha magaalada gaalkacyo, gaar ahaan qaybta ay ka taliso galmudug.